Noloshu mar waliba ma fududa. Dhab ahaantii in badan oo idinka mid ah oo maanta halkan idinkula sugan ayaa dhibaatooyin badan maraya. Waxaa jiri doona waqtiyo aan rafaad mari doono. Waxaa jiri doona waqtiyo aad u xanuun badan. Balse su'aashu waa, sidee ayaad uga jawaab celin doontaa waqtiyadaas dhibaatada badan? Waxaan rabaa inaan kugu dhiirigeliyo. Ma ahan waxa ka dhacaya dhinacyadaada, balse waa waxa ka dhacaya gudahaaga. Kaliya waxaad dareentay dhiiranaan la'aan. Ma ahan inaad quus dhigto. Waxaad dareentay cabsi. Ma ahan in cabsidu ku haysato. Kelmadaha afkaaga ka soo baxaya waa qiso aad bannaanka u soo bixinayso. Ma samayn karo, waan isdhiibay, aan isfurno, waxaan sameeyey khaladaad badan, waxaan ahay ma guulayste, cidna ima caawinayso. Ma garan karo waxa afkaaga ka soo baxaya, balse waa dhimasho cirbadeed. Dheh ma quusanayo. Dhibaato kasta oo igu dhacda cashar ayaan ka baranayaa. Haddii aadan quusan, waad guulaysanaysaa. Xanuun kasta waa mid dhammaanaya. Xanuun kasta waa mid dhammaanaya. Balse khibraddu waa mid waaraysa.